nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa mu'minka xooggan. imaamu nawowi wuxuu leeyahay xoogga la sheegaya waa quwa nafsiya buu leeyahay. mu'minka xooggan baa ka khayr badan buu nebigu yidhi mu'minka daciifka ah. labadabana khayr baa ku jiro dee iimaan baa ku jira. nebigu wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacak, ku dadaal baa la yidhi waxa ku anfacaya. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caynkaas buu ina leeyahay. waxa uu ina leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wastacin billaahi walaa tacjis. ilaahay kaalmayso subxaana wa tacaala iyo marnaba ha cajsinin. cajsiga ugu weyni waa adigoo awooddaada arki waaya. in aadamkii walaalkii dilay waa kii awooddiisiiba arki waayey, dabeetana walaalkii un tuurta iskaga sitay ee ilaahay subxaana wa tacaala u soo diray maxay? quraab tuka waxbara. dabeetana wuxuu idhi acajaztu an akuuna mila hada alghuraaba fawaariya sawata akhi. war ma waxaan ka caajisay, ma waxaan ka hoos maray tukaha kan xoogga wuu qabaye jahligaa hayey, xooggiisii wuu qabaye tukahana in cilmigii ku kordhiyey jahligaa hayey. mushkiladda meesha taalla waxay tahay kow innagoo jahligu inagaga sugayay nafteenna. ilaahayna uu ina leeyahy subxaana wa tacaala wafii anfusikum afalaa tubsiruun, wafii anfusikum afalaa tubsiruun. ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo sheegayoo le wacallama aadama alasmaa'a kullaha. aadam waxa magac jiro oo dhan baa la baray. waxaa la baray aqoon malaa'iga ay ka caajistay oo samayn kari weyday. hadda aadan inankiisii madadna tahay, meel kale kamaad iman. aadamkaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala asmaa oo dhan baa la baray, inankiisii baa tahay. taa macnaheedu waxa weeyaan inaad wax kastaba samayn karto. waxaad kaloo u baahan tahay. imaam xasan albasri baa wuxuu lahaa war nafta buu yidhi haddaanad xaqa ku mashquulin baatilkay kugu mashquulinaysaa. nolosha ma jiro wakhti firaaqa la yihi. iminka bishan horta waan shaqaynayaa, bishaad shaqaynaysana qayb, waayo noloshu wakhti firaaqa aba ma leh. mar kasta hawl nooca unbaa ku haysataa. saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan albasri war naftan haddaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahay iyadaa baatilka kugu mashquulinaysaa. adigu shuqulba waayi maysid, adigu shuqul waayi maysid. mar haddaanad shuqul waayin adigu shuqulka xadee, shuqulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga kaa soo fulo ahmiyad kuu kale leh oo priorities kuu kala fog. waxaad kaloo u baahantahay albii'a almuthabita inaad ka tagto. dadkan dadka cagsi geliya waxba lama qaban karo, waxba. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaa'ulka. tafaa'ulku waa maxay? waa inuu qofku khayrka had iyo goor sheego, wanaagga, in waxa la qaban karo. culamaa'i nafsi waxay yidhaahdaan alrasaa'il aliijaabiya walrasaa'il alsalbiya waxa la yidhahday sheegaan. waxay yidhaahdaan risaalaadka iijaabiga positifeka wanaagsan iyo wargeysyada ama dhambaallada negatifeka ama xun. maalan bay yidhahdaan ilmaha yare qur-aanka aad u dhigaysa haddaad tidhahda habi iyo waxba garan maysid, ximaar weeyaan kani, eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihin ximaar culamaa'i nafsi. waayo waxay leeyihin haddii lagu celceliyo caqlulbaatinkuu galaa bay yidhahdeen. caqlulbaatinka waxa galaana hore uma soo noqdaan. saa daraaddeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihin inuu fashiliyey oo aanu waxba qaban karin. waxa ka roon bay yidhaahdeen tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica. waad fiicantay inaad tidhaahdo, inaad adigu yara samayso tidhaahdo maantaana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybiya. waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa 5 minit halkaa u bax. intaasaa ugu filan bay leeyihin inuu qaybo. walidaalika xataa waxay yidhaahdaan markay culamaa kuwan psychologiga markay ka warramayaan wax haddaad rabta bay waxa laga yaabaa nafteenna inaan wali baran. wax haddaad rabta bay dhahdeen nafta inaad ka dhaadhicsa intaad cidla fadhiisata bay yidhaahdaan. u sheeg adigu naftaadu kor ugu dhawaaq bay yidhaahdaan. ma arrintaa ka warran? waxay leeyihin intaad cidla fadhiisato waxaad tidhaha qur-aanka waan qaybi karaa, waan qaybi karaa, waan qaybi karaa, waan qaybi karaa, waan qaybi karaa. waxay leeyihin waa risaala loo diraya bay leeyihin caqliga aamusnaa. xataa bay yidhaahdaan sida negatifeka ah u isticmaali bay yidhahdaan waayo tadambuu qabtaa bay yidhaahdeen. maalan negatifka ku isticmaalin yacni ma awoodi karo inaan ma ihi faashil ha odhanin bay yidhahdaan. faashilkuu qabanayaa bay yidhahdaan. waxaad tidhahdaa naajix baanay waan guulaysanaya adaadhe bay yidhahdaan. waayo waxay dhahaan caqliga bini aadamku haddii lagu yidhahdo maalan iminka bay yidhaahdeen faras madow ha ka fakerin, maskaxdaadu marka ugu horraysa waa faraskii madow bay qabanaysaa bay yidhahdeen. دي ما كان faras badan waa ka fakerin
faraska madoobay maskaxdaadu markiiba u tallaabaysaa laadii hore bay yidhaahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraaddeed waxay culimmadu yidhaahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة قفكو إنه استعماله وياه نفتا إنا دوش نلش الصعوبات بيلاده ودالي كرتا مشكلة باكاهر ما كرتا وحاسي لكن وحلوه بهينة كدول بودو وحلوه بهينة طاقات كي كوكو كيت سناينا ديبو أديك ستون وحلوه بهينة دي سديبين نلش سديب كاوغول ليتا وحلوه بهينة مركاينة تنهضا وان قابن كرا وان قابن كرا وان قابن كرا وان قيب كرا وان قيب كرا وان قيب كرا